بسم الله الرحمن الرحيم wax ka barano farqiga u dhaxeeya compensation iyo benefits waa dheef la siiyo shaqaalaha shirkadda sida mushaaraadka iyo gunooyinka dheeraadka loo bixiyo qayb waxaa loo bixiyaa lacag ahaan qaybna ma ahan lacag ee waa faa'iidooyin kale ay helaan shaqaalaha sida caymiska oo kale waxaan isla arkaynaa micnahooda iyo farqiga u dhaxeeya labadan dheef haddaan ku hormarno micnaha compensation waxaan ku qeexi karnaa waa lacag si toos ah loo siiyo shaqaalaha kadib markii ay shaqo u qabteen shirkadda ama hay-ad ama dowlad lacagta la siinayo waa mid la cayimi karo ama cadadeeda la sii ogyahay markana aan isla fahanno qeexidda benefits waa dheef aanan lacag ahayn hadda oo la siiyo shaqaalaha waana ka dheeri ama waa ka siyaado ka baxsan mushaarkooda waana sida caymiska caafimaadka oo kale howlgabnimada oo kale iyo wixii la halmaala haddaan qeexidoodii isla fahnin aan aragno markan ujeedada laga leeyahay mid waliba haddaan ku hormarno compensation waxaa shaqaalaha mushaarka loo siiyaa inay si cadaalad ah u helaan magdhow lacageed oo hadba ku xiran dadaalkii iyo xirfadii ay ku biiriyeen shirkadda si ay shirkadda u gaarto ujeedadii u deganeed lacagtan mushaarka hadba waxay ku xiran tahay heerka shaqada waxaana loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo shaqaalaha iyo inay kasii mid ahaadaan shirkadda ama hay-adda ama dowladda maadaama ay lacag ku helayaan dadaalkoodii iyo xirfadoodii ay ku biiriyeen halka ujeedada benefits ay tahay in sare loo qaado heerka ku qanacsanaanta shaqada ay u hayaan shirkadda waxaana loo adeegsadaa in lagu soo jiito shaqaalo tayo leh ha ahaadaan kuwa hadda jooga ama kuwa laga yaabo inay mustaqbalka kusoo biiraan shirkadda markana aan isla fiirino haddii wax laga bedelo aan ku horumarno compensation mushaarka waa lagu kordhin karaa sidoo kalena waa lagaa dhimi karaa ama waa lagaa reebi karaa balse midda dambe badi lama sameeyo haddii xaalad qasbaysa aysan jirin mushaarka badi waa la kordhiyaa hadba ayadoo loo fiirinayo waxqabadka shaqaalaha kadib markii qiimeyn la sameeyey dhammaadka sanad waliba sidoo kale waa la kordhiyaa ayadoo la fiirinayo faa'iidadii ay shirkadda soo saartay iyo welibana isbeddel ku yimaada heerka mushaaraadka suuqa ama waddanka dhanka benefitska badi lama bedelo marka loo barbar dhigo mushaaraadka ama compensationka haddii la bedelayana waxaa keena dhaqaalihii waddankii oo isbedelay ama dowladdii oo soo saartay sharci la xiriira dhanka dheefaha aanan lacagta ahayn hadda sida howlgabnimada iyo caymiska ama xaaladii suuqa oo isbedel ku yimaaday ha ahaato mid togan ama mid taban markana aan isla aragno noocyada compensationka waxaanan ka hadlaynaa afarta ugu waaweyn kow waa mushaaraadka asaasiga ah waxaana lagu bixiyaa lacag ahaan labo waa bonuses waa lacag dheeri ah oo la siiyo shaqaalaha kadib markii ay gaareen yoolkii loo dejiyey ama waxqabadkoodii u heer sare noqday saddex waa overtime waa lacag dheeri ah oo la siiyo shaqaalaha kadib markii ay shaqeeyeen waqti ka baxsan muddadii lagu heshiiyey tusaale waddanka jimco oo kaleeto waa fasax kama tirsana waqtiyada aad sida caadiga ah u shaqayn jirtay haddii ay shirkadda ku wacdo oo shaqadaadii laga maarmi waayo waxay noqonaysaa waqti dheeri ah ama waxay ahayd inaad shaqada soo gashid 8 subaxnimo kana baxdid 4 galabnimo balse waxaa soo baxday shaqo dheeri ah waqtigaas kaloo dheeraadka oo aad shaqaysayna waxay soo gelaysaa overtime-ka qaabka afraad oo shirkadda lacag ku siiso shaqaalaha waa commission tusaale waxaa lagaa rabay inaad gadid bil waliba ugu yaraan 5 qasaaladood wixii dhaafsiisan ama ka dheeri noqdana waxaad ku helaysaa commission markana aan aragno noocyada ugu waaweyn ee benefitska ama dheefaha aanan lacagta ahayn hadda oo ay shaqaalaha helaan kow waa health insurance ama caymis caafimaad waxaa lagu ogol yahay haddii aad xanuunsatid inaad dhakhtar u tegi kartid sidoo kale dhakhtarkii ilko oo kaleeto ama dhakhtarkii la xiriiray arag oo kaleeto balse ogow inta lagu ogol yahay waxay ku xiran tahay heerka ama darajada aad ka joogtid shirkadda waxaad arkaysaa isla shirkaddii ayadoo qofna loo ogol yahay 3 xabo qofna loo ogol yahay 1 xabo mar waliba oo lagu dallacsiiyana waxaa siyaada heerka caymiskaada labo waa retirement plans waana inay shirkaddu wax ka bixiso lacagta loogu talagalay inuu qofka shaqaalaha ah u isticmaalo marka uu shaqada ka tago ama howlgabka u noqdo ku saabsan retirement ama pension fund fadlan ka dhigo silifaaq hoose oon hadda kor uga soo hadalay saddex waa in marka aad ku jirtid fasaxa sanadlaha ah oo bila ama maalmaha aad xanuunsan tahay oo ugu badnaan la ogol yahay inay noqoto 2 bilood waa inaad mushaarkooda heli kartaa afar aan dhahno adoo shaqadii u socda ama shaqadii jooga ama shaqadii intaad ka tagtay usii socda xaafadaadii ayaa dhibaato ku qabsatay midaasoo kuu keentay
inaad curyaantidoo kaleeto ama naafo aad noqotid haddaba waxaad leedahay caymis dakhli maadaama aanad sidii hore shaqadaadii u qaban karin badi waxay ku xiran tahay intaad shirkadda u shaqaynaysay waxaa dhici karta qofkii inuu dhinto lacagta caymiska waxaa la siinayaa qof waliba oo aad ku qortay in bilowgii la siiyo tusaale aan dhahno waxaad ku qoratay xaaskaagii ama odagaagii ama waalidkaadii ama caruurtaadii qayb ka tirsan qofkaas unbaa la siinaya gunaanad qeyfahan loo qaadanayo qayb lacag ahaan qaybna aanan lacagta ayn hadda sida caymiska oo kaleeto ama hadhow damba noqon karta lacagta sida lacagta howlgabnimada oo kale waxaa shaqaalaha loo siiyaa in lagu dhiirigeliyo inay kusoo biiraan shirkadda si ay u gaarto hadafkii ay rabtay shaqaalahan ay u dareemaan inay cadaaladi jirto xaqoodii ay helayaan kadib markii ay shirkaddii u qabteen wixii lagu heshiiyey mahadsanediin waa inoo markala diro bidmo